haddaba gabadhan muuqaalka aad ka aragtaan ma aha agtarad mana aha fanaanad mana aha qof heesaa ah ama caan ku noqday waxyaabahaas oo kale gabar qurux badan oo yar weeye waxay noqotay ra'iisul wasaaraha dalka Thailand waa gabadhii abid ugu yareed oo noqota ra'iisul wasaaraha dalka haddaba gabadhan ayaa waxa dhalay aabaheedii Shinawatra ayada magaceedu waxa la yiraahdaa Patom Shinawatra wuxuuna aabaheed ahaan jiray ra'iisul wasaaraha dalka until ay militariga xoog ugu qaadeen oo in badanna dibadda uu ku maqnaa hadda ayuu dalka dib ugu soo laabtay isagoo ay weliba cafis u fidiyeen boqortooyada dalka Thailand gabadhan ayaa hadda loo dhaariyay xilka waxayna noqonaysaa gabadhii ugu yareed abid oo dalkaasi ra'iisul wasaare ka noqoto haddaba wixii warar ah waxaad kala socon kartaan goobtan wax walba oo quseeyo caalamka ha noqoto wararka caalamiga iyo wax walba haddaba share gareeya follow gareeya like gareeya nagu soo biira haddii aad aragtaan warar caalami ah oo aad noo soo diri kartaan page-keena noogu soo dira ama YouTube noogu soo jira ama Facebook noogu soo dira ama halkan noogu soo dira goor walba la socda gaarsiiyaha Soomaali